waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkayga aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago xog aan kaga hadli doono shan kamid ah aktaradii ugu caansanaa Bollywoodka sagaashameeyadii kuwa oo geeriyooda laakiin Soomaalidu qaar ay wari u haystaan in ay nool yihiin haddaba waa kuwii shantaas jira xogtaas ayaan idinla wadaagi doonaa balse intaan u gudagelin muuqaalkayga waxaan idin ka codsanaa janaalka inaad subscribe in aad noo saartaan haddii muuqaalku cajab geliyin hadhow ha iloobin inaad like inoo saarto wixii dhacay iyo fikir aad qabtana commentiga hoos inoogu reeb soona dhawaada saaxiibayaal waxaa jira jilayaal dhowr ah oo Bollywoodka caanka ah kuwa oo maantadan aan nooleen ama geeriyooday laakiin xogteena waxay qudusaysaa shan kamid ah aktaradii ugu caansanaa Bollywoodka dhamaadkii ilaa bartamihii sagaashameeyadii kuwa oo Soomaalidu qaar ay u haystaan wali inay nool yihiin jilaaga ugu horeeya aan ku bilaabi doono waa jilaaga caanka ah ee lagu magacaabo Lakshmikant Berdi. Lakshmikant Berdi Soomaalidu qaar waxay u yaqaanaan balaq. Jilaagan waxa uu dhashay 26 Oktoobar sanadii 1954 waxa uu geeriyooday 16 Diseembar ama bishan hadda aan ku jirno 16 Diseembar markay ku beegneed sanadii 2004. jilaagan xilliga waxa uu ahaa ahaan 50 sano ama 50 sano ayuu jiray waqtigii uu geeriyoonayay sanadii 2004. jilaagan ayaana xanuun waxa uu geeriyooday sida shaac laga qaaday sanbaba xanuun ama sanbabada xaggeeda ayuu u geeriyooday jilaagani. sheekadani aktarka labaad ee taabanayso waa jilaaga dhanka doorka kaabalaadnimada lagu xasuusto dhanka sagaashameeyadii markaan eegnay Nirbal Bandi. jilaagan lagu magacaabo Nirbal Bandi waxa uu ka soo muuqda aflaam dhowr ah kuwa oo laga xusi karo filimka caanka ah Awzar ee hogaamiyaal ay ka wada hayeen Salman Khan iyo sidoo kale Sanjay Kapoor. aktarkan waxa uu dhashay 10 Agoosto sanadii 1962 waxa uu geeriyooday 18 February sanadii 2010. da'an xilliga waxa uu jiray 47 sano ama 47 jir ayuu ahaa markuu dhimanayay. dhimashadiisana waxa uu sabab u noqday sida shaac laga qaaday wadna xanuun ama dhanka ay wadnaha ayuu geeriyooday aktarkani. sheekadani qofka saddexaad ee taabanayso waa jilaaga caanka ah Rami Raidi ama Rami Raidi. Soomaalidu qaar waxay u yaqaanaan waqwaq. waqwaq waxa uu kamid yahay aktaradii kaabalaadnimada dhanka doorka kaabalaadnimada sagaashameeyadii aflaam badan kaga soo muuqday haba u badnaadaan dhanka aflaamta Mithun Chakraborty. jilaagan waxa uu dhashay 1 January sanadii 1959 waxa uu geeriyooday 14 Abriil sanadii 2011. da'an xilliga waxa uu jiray 52 sano saaxiibayaal. jilaagan dhimashadiisana waxa uu sababsaday xanuun dhanka beerka iyo kaliyaha ayuu u geeriyooday saaxiibayaal. sheekadan qofka afraad ee taabanaysa waa rugcadaaga caanka ah Amrish Puri ama Salim Sey waxaad u taqaano. Salim Sey waxa uu kamid yahay aktaradii ugu caansanaa markay timaado doorka kaabalaadnimada ee soo maray Bollywoodka ama fanka India saaxiibayaal. jilaagani waxa uu ka soo muuqday aflaam dhowr ah oo aan la tiri karin. Amrish Puri ama Salim Sey waxa uu dhashay 22 Juun sanadii 1932 waxa uu geeriyooday andhahay saaxiibayaal 12 January sanadii 2005. Salim Sey waxa uu kamid yahay jilayaasha ugu caansanaa ee soo maray taariikhda markay imaado fanka India waliba dhanka iyo doorka villainka ama kaabalaadnimada saaxiibayaal. sheekadan qofka shanaad ee taabanayso ama aktarka ugu dambeeya ee sheekadana taabanayso waa jilaaga caanka ah ee lagu magacaabo Indra Kumar ama Surya waxaad u taqaanaba. jilaagani waxa uu dhashay markaan eegno 26 Agoosto sanadii 1973 waxa uu geeriyooday 28 Julaayo ama Luulyo sanadii 2017. xilliga da'an waxa uu jiray 44 jir ayuu ahaa marka uu geeriyoonayay jilaagani waxaana uu sababsaday sida shaac laga qaaday ama wadnaha ayaa istaagay ninkaani lagu magacaabo Indra Kumar ama Surya. jilaagani Indra Kumar waxa ka soo muuqda aflaam dhowr ah kuwa oo laga xusi karo filimka caanka ah ee Baji oo la daawaday sanadii 2000 waxaana hogaamiye ka ah Suryagan hadda aan ka hadlaynay sidoo kale Sanjay Dutt. sidoo kale waxa uu ka soo muuqda filimka caanka ah ee Kay Pyar Na Ho Jaye ka uu hogaamiye ka ah ninka lagu magacaabo Salman Khan saaxiibayaal. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa saaxiibayaal xogta yareed ee aan kaga hadlaynay shan kamid ah aktaradii ugu caansanaa Bollywoodka ee soo maray sagaashameeyadii laakiin waqtigan la joogo aan dunida dul saarnayn ama aan nooleen. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkeena like inoo saar haddii aad janaalka cusub tahana subscribe inoo saar wixii ra'yi iyo fikir aad qabtana commentiga hoos inoogu reeb waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.